kulanti aboon oo wanaagsan akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan waxay ahayd maalinimo Sabti ee Oktoobar 15 ay ku soo dhawaada qodobada xiisaha leh idinka iyo warbaahinta wargeyska City aan ku bilaabay magaalada Erer oo caan ku ah wax soo saarka khudaarta iyo sidoo kale kala iibsiga xoolaha ayaan warbixin idinka haynaa sidoo kale waxaan ku soo qaadanaynaa maamulka magaalada Diridhabe oo maalmaha nasashada ka dhigtay inay kor u qaadaan bilicda iyo nadaafadda isla markaasina ay nadiifiyaan magaaladaasi xaafadaha kala duwan sidoo kale xulka 7 jirada Soomaaliya ayaa qaaday koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee loo soo gaabiyo Sekafa intaasi akhyaaray waa qodobada wararkeena caawa haatan ku soo dhawaada iyagii oo fidsan degmada Erer ayaa kamid ah degmooyinka qadiimiga ee wax soo saarka kala duwan iyo goobaha taariikhiga caanka ku ah magaalada Erer oo dhinaca wax soo saarka beeraha caan ku ah ayaa waxa magaaladaasi lagu kala iibsadaa khudaarta noocyadiisa kala duwan oo ay kamid tahay sida liinta iyo sidoo kale noocyada kale ee khudaarta hadaba maalmihii u dambeeyay ayaa waxa shacabka ku dhaqan magaaladaasi Erer ay sheegayaan in qiimahaasi uu korokoc ka yimiday inkastay daris leeyihiin deegaanka Oromiya oo maalinka ay soo golaan khudaarta aad u badan oo laga soo saaro isla degmada Erer iyo sidoo kale ka imata deegaanka jaarka ay leeyihiin Oromiya haddaba qaar kamid ah dadka xawaashka ka ganacsada iyo khudaarta ayaa nooga warbixinaya bal qiimaha halku marayo iyo sida uu saameeyay sicir bararku afartan konton waa ka kuwa ina way ka sii daran yihiin waa cirka baasadu kartoonku wuxuu ahaa 300 iba ka waa 600 makaroonu ka daran yahay daqiiqda bariisku waa wala qaali maxaad ku codsanaysaa dawladda ilaahay inaan naga ridin daaw ilaahay noo garab galo waxa hoosna looga rido insha Allah ma noolaan karayno sidoo kale magaalada Erer waxay leedahay goob Taiwan oo dharka lagu kala iibsado oo shacabka miiga iyo magaalada ka imanaya ay ka iibsadaan dharkaasi iyadoo maalmihii u dambeeyana laga dareemayay kor u kac dhinaca qiimaha haddaba qaar kamid ah shacabka halkaasi ka ganacsada ee ka keena dharka meelaha kala duwan ayaanu waraysi la yeelan isla markaasina nooga warbixinaya habsami u socodka sida ay wax uga iibiyaan bulshada iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga Saadaxan Kaafiye Muuse Ibraahim waxaan ahay degmada Erer waxaan ahay ganacsatada sharshaariga ee qudradleyda waxaan keenaa alaabtan wajaala ka keenaa qaybtan salaaliga la yiraahdo xagan Taiwan tan yar magaaladan u qaybinaa marka adduunyadu aad iyo aad buu sicir barar ku kacay magaaladiina waan garan la magaalada Diridhabe buqaaradii hore alaabtii lagu dajinay ayay ka jaban tahay xaga Soomaaliland waxay ku isticmaalaan dollar ahaan dollarkii baa xaga ka kacsan maanta boqolkii dollar 6,000 bir oo real buu mariyay marka aad balaado dhib ma lahayn waa kaas ma xagan ma ku kana buqaarada dadka ma u qaybinaa dadkana anaka dadka u keena saasaan ku isbanaa magacayga Maxamed Amiin Cabdi Cali baa leeyahay ka warbixi nolosha magaalada Erer sicir bararka ka warbixi sicir bararku aad buu u sii kordhaya marka dollarkan baa la leeyahay markaad maanta soo iibiso bari kolkaad ku noqoto wax kala aad ugu imanaysa maanta kolkaad wixii halkan keento wixii aad halkan ku iibinaysa halka uu ka sareeyo marka sidaa baan farqi weyn baa u dhaxay meheradaada imka dharkaad iibsaa ka warbixi sicir bararka dharka ku yimid laftigiisa wixii halkan yaalay kolkaan eego wixii halka yaalay isku mid ma toddobaadkii adoon joogin buu ku biirayaa 200 300 marka waxaad ku iibisay waad garan waayay marka waan ka yaabanahay nolosha korba u sii kacaysa aad maxaa soobaas leedahay waxyaalaha u aanayna maxaa kamid ah waxay leeyihiin anagu meeshaan ka keenanayna dollarkii baa kacay dollarkii baa 6,000 buu marayaa marka sidaa weeyaan marka waxba lama iibinayo ka soo galaya la ogaanaya kan aan hubsano maayna ka kala ma iibinayna kooranaya maadaama uu dollarku kor u kacay anu Diridhabe man ka keeno xaga keenta meel dheer uma doon
guud ahaan magaalada Erer waxay ka mid tahay magaalooyinka caanka ku ah dhinaca wax soo saarka beeraha iyo sidoo kale khudaarta, waxaana isugu yimaada bulsho aad u tiro badan oo bulshada xoolo dhaqatada iyo kuwa kale beeraleydaba, waxaana la isku dhaafsadaa badeecadaha kala duwan ee khudaarta iyo sidoo kale xoolaha. isla warbixinteena caawayaan ku guda jirnaaye maamulka magaalada Diridhabe ayaa tan iyo markii isbedelku ka dhacay halkaasi bilaabay inay maalmaha nasashada 15 maalmoodba ay nadiifiyaan magaalada, isla markaasina ay kor u qaadaan bilicda iyo nadaafadda. haddaba wakaaladda bilicda iyo nadaafadda ayaa bulshada ku wacyigelinaysa in ay goobaha qashinka loogu talagalay ay ku ridaan oo ay magaalada ka qayb qaataan dadaalada loogu jiro kor u qaadista bilicda iyo nadaafadda. magaalada Diridhabe ayaa waxaa maalmahan dadaal xooggan loogu jiraa sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda iyo nadaafadda, waxaana ololahaasi nadaafadeed ka qayb qaata maamulka magaalada Diridhabe iyo bulshada xaafadaha kala duwan degan oo maalmaha Axadda ama Sabtida nadiifiya goobaha kala duwan, iyadoo maamulkuna uu tafaxaytay inuu magaalada ka dhigo mid aad u quruxsan oo bilicsan. waxaana shacabkaasi lagu wacyigelinayay inay iyaguna ka soo dhalalaan doorkooda kaga aadan nadiifinta magaaladooda. khiyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudana waxaan ku soo afmeeraynaa waa xulka qaranka 17 jirada Soomaaliya oo maanta dhigay taariikh cusub. xulka qaranka 17 jirada Soomaaliya ayaa maanta ku guuleystay kuubkaasi bariga iyo bartamaha Afrika ee Sekafa loo yaqaano, waxaana ay ka guuleysteen kooxda koonfurta Suudaan oo 3-1 ay kaga guuleysteen. dhalinyaradan xulkan qaranka Soomaaliya ayaa 3-1 uga adkaaday koonfurta Suudaan kadib markii ay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan oo ahayd difaacasho iyo weerar, waxayna ku guuleysteen finalka Sekafa 17 jirada. waxaana la ogsoon yahay in 7 jirada Itoobiya ay ku soo reebeen sida laga warqabo wareegii 8-damaadkii, halka ay Ugandana ay ku reebeen wareegii semi-finalka. galabtan ay guul taariikhiya ka gaadheen koonfurta Suudaan oo ay 3-1 uga adkaadeen. golaha xildhibaanada kubadda cagta ee bariga iyo bartamaha Afrika Sekafa ayaa waxay martigelisay Itoobiya intii u dhaxaysay maskaram 23 ilaa 5 daqiiqadii. waa taariikhda Itoobiya garoonka Bikila. xulalka Soomaaliya iyo koonfurta Suudaan oo ku kala baxay kaalinta 1 iyo 2 ayaa tartanka ku matali doona tartanka kubadda cagta ee 17 jirada ee bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika oo ay martigelin doonto dalka Algeria bisha Megaabit sanadka 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya. waxaana dalbaadegyo kala duwan iyo farxad ay taageerayaasha xulka qaranka Soomaaliya ay ka muujinayaan, iyadoo aadna looga dalbaadegay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudana inta ayaan ku soo afmeeraynaa warbixinteena caawa. intaan warkan war lamida ku kulmi doono Xasan Cabdi idin ku dhaafaya amaana Allah.